waxyaalaha kan aadna weydiinaysa ee salsalka ciisow waxay ka mid yihiin suugaantan iyo balaayadatan marna dadka nabadda u qaada marna xumaanta u dira marba maaragtay mawduucu marba meesha uu marayo yaa jira markaa niman reer hargeysa ah oo laba reer u kala kaca oo la kala yidhaahdo reer gobdoon iyo niman la yado ciise dhamal walaalana ah ayaa culoobay markaasa dabadeedna qoladii laga faraha badnaa doonaysa inay qaxdo markaa dabadeed naag doonaysa in wax dhacaan oo balaayo ah yaa markaa doonaysa inay ragga dagaalansiiso geedigan iyo waxaan diidaysa haba markii waa dhul colaadeeda awrtii lagu lalabay yay markaa salsalka ka tirinaysaa dabeedna waxay tidhi war waxaan kale ragyaal maahe war waxaan kale ragyaal maahe soo guday reer wiil soo guday reer wiil soo guday reer wiil magaalka kula warwareegtay ninkeedii iyo dabadeed madaxda meesha ka mid ah yay doonaysaa maaragtay inay kulayliso oo kolkaasay tiri halkan oo kala jiifay kugasha halkan u dhigtay bay awrkeedii ku muuqato waxay tidhi raggayaga raggii qabay war raggayaga raggii qabay baa laga rooray riiraashku waa ratigii awrkii bay la hadlaysaadoo iyadoo raggiina isku gubaysa bay tiri raggayaga raggii qabay baa laga rooray riiraash raggayaga raggii qabay baa laga rooray riiraash way ku celiso waxay tidhi isuqaawintaydiiba war isuqaawintaydiiba loogoodha buuraa ma jirto waxba kale lama hayo ninkii wuxuu yidhi aroorta rarka ka dhiga degmadii oo dhan baa war loo wada diro wax leeyi waa degaynaa waa gadxiiraynaa daba khasaare weyn oo gabadhaas u sababahay yaa halkii ka dhacday soo gidi dhalinyarada tusaale markay tubaynayso ma tallaabadii soo guban timihii ku muuqan timihiisii baa la tilmaamay wiilkii dhalinyarada ahaa tolyabiyo soo ka gubdo tagay ballaad maaha soo gudi nin liidhare buu ahaayo cajaa'ib qaba oo dabadeedna goobtaasaanu ku saasaan dhacday waxyaabahaasa ka mid ah marka la dhaamiyo ee dhaanku maqan yahay dadku hadduu ma yahay galabtii waxaa loo baxay dhirta harqodaalkeeda war dhaankii xilligee soo deegan yahay talo goormuu imanaya waxaasa lahayo marka kii garhka rarayay wuxuu yidhi iminkaa har loo baxdo haasaabo galabeed iyo hadalkeenna la hayo iminkaa har loo baxdo haasaabo galabeed iyo hadalkeenna la hayo midna waa kale bacadloo ban loo guuriye barbadhaan ma ku haya talo maxay uga dan lahay biyihii baa loo dhawaaday oo dhaan dheer iyo bacadlow ban loo guuriyey dhaan dheer oo dambe lagu rari maayo barbadhaan ma ku haya ma faraxsan tahay midna wuxuu yidhi markuu rarayay uu tidhi waa raagtay oy markaas ceelkii joogaan waa layna dhawraayo dallaankii dhawaaq kulul buu hadda kugu dhigaaya dhoomaha aan kugu raro midna wuxuu tilmaamayey sida awrta loo raro ninka la rarayuu tilmaamaya wuxuu yidhi lama fuushan maayo dhaan gurale baan nahay hamu iyo hoos inaa kala dejibu ila awrta kale waa tacaruurta iyo waxa qashiga loo guraya lama fuushan maayo dhaan gurale baan nahay ciisow ku warramaya geelu qiimaha uu soomaalida ugu fadhiyo waa yahay lagama sheekayn karo waa yahay anigu jeclaan goonniyaan marka sidaas oo kale xagga qiimaha loo eego markaasaan jeclaan goonniya sii qaada waa kow sababtooda waxaan ogahay soomaali wixii uu qabtay waa tahay marka loo eego africa dadka kale oo dhan waxa gacanta loogu qabtay oo diintooda loo gediyey oo daba isticmaalkii uga xoog roonaaday way soomaali loo qaban waayey waa geela marka aan sii jeclaanaya waa markaa waa tahay sababtoo ammaantoo kale haddaynu halka isku qabanno isticmaalka ciidankeenni waa soo hadhaya isticmaalkii baynu la dagaalamayna
ninkii dee beer lahaa ama macmushtari ahay magaalada fadhiyay dee waxba qaban kari maayo halkaas waa waxsanaya gurigiisana waa la yaqaan iyo meesha uu degan yahay inagu markaynu colka iyo noolaha samaynay yuu geeli iska tegey dabadeed ilaa shalayto markaynu diyaar garownay waxaynu garanaynaa xal oo dhan buu guureynayo imika inuu marayaa beled weyn oo kale markaynu nimanka faranjiga maanta halka isku qabsanno hadduu inagaba xoog roonaado hadhow aydana waxay dhintama waxay kale iska maraan dee geeli hawl buu jiraa la gaari kara maayo ama xuduud dawlado kale ayaabuu galayba markaa dabeed meel laguu soo doonaa ma jirto khasaarihii isagii uunbuu ku hadhay ayaantaasaynu dhibtii hore markaynu ka bogsanno meel kale ku dhufanayna marka anigu waxa baan leeyahay diinteenna la gediyi waayey iyo dadnimadeenna iyo isticmaalka waxaynu ku riixaynay intaba waxaa u sabab ahaa iyada nacfiga kaleba loo eegin geela u sabab ahaa marka waxa kale oo jira haddaynu kaba soo qaadno markii la damcay in soomaali xeerka loo kala furo oo gacanta lagu qabto noord markaynu joognay markii daraawiish la ogaaday ay baaba'day sayid maxamedna dhintay 1922kiina ay ahayd waxaa la yidhi haddaad tihiin dadka shicibka ahe ingiriis xukumow ninkii walowba hayr tagsi baa lagaa doonayaa ninka reer miyiga waxaa laga rabaa walaba jira haddii aanu xoolo lahayn dawladda intay shaqo siiso 5 rubood ka goosanaysa marka hayr tagsigii halkaas u dabadeedna gacanta laydinku wada qabanaya waa laydin tirinaya ilmaha dhintana halkaas waa laga bilaabaya oo waxa loo qaybinayaa boqolkii reerba nin sarkaale iyo caaqiliin iyo askar iyo waxaasa loo qaybinaya ninkii dhintana registerkaa laga goynaya sidaasaa ingiriiskii caddeeyey barasaabkii magaaladiisii waa ka yimi magaaladii burxuu yimi hayrku waa dhawaatay iyadoo ahaan jirtay ilaa gadaal baa loo guuray hargeysa waatii halkaa la isugu yimi waxaa la yidhi warba ninkaaga faranjiyo nimanka soomaalida ahee qabaa'ilka ah ee dabka haysta ee xoog galay ee annagu aanu mushaharka yar ku qaadano dee adigu haddada qaabilsiinayso daba cashuurtii iyagii baan cid uga yeedhaynaaye la hadalo adigu baan ogolaysi intaad annaga noogu hanjabayso dabadeed rubiyadahan xunxun ee aanu qaadanayno waa tii niman tilmaaman oo dhanna ka ah qabaa'ilka nimanka u taliya oo caqliinta ka hooseeya oo raggii nin garboodka miidhan ahaa ee raggii colaada wadan jiray ah oo dabkoodii iska sita waa ta loogu yeedhay gobolka inay garre ee burco ingiriistii barasaabkii iyo dhiisaygoodii iyo askartoodii iyo waxoodii oo dhammi xaggiisana shacabka inta lagu soo shiray ayaa dabe caaqiliintiina soo lugaysay ninkii mushahar u qaadan jirado toguu soo socdaa wiilal yaryar baa iyagiina tuurtuuray magaaladii waa looga baxay oo dabeedna wax ligaaloy jab halkaa xerada milatariga ah dhabarkeeda ayaa dabadeedna mishingaano iyo waxna la soo saaray barasaabkii xaggaa dusha intuu ka soo laabtay dooxa barbarkiisa uu isa soo taagay dhiisaygiina la socdo lana doonayo meesha oo la goglay oo dabadeed meel la doonayo in lagu shiro ah oo meeshaa loo yaqaano gobabka ina igari lagu soo socdo oo gaadhigi xaggaa kaga yimaado yaa dhiisaygii intuu xagga dambe ka degay markiiba deg deg uga furay markaa barasaabkii daaqadda daaqadii uu furayey ayuunba halkaa ay ka liigsaameen nimankii la doonayay inay la hadlaan markiiba isagii bay qaadatay markii isagii halkii ku dhacay buu dabeedna gaadhigii markaa dhiftay darawalkii oo daartii milatariga sawaaxiligu ku jiray xagga shishe uu ka joojiyey oo uu la cararay maydkiina halkiisii ayuu ku dhacay markaa dabadeed halkii waa ti lagu kala yaacay dagaal baa dabe laysugu saftay soomaalidii mishingaan baa lagu riday iyadiina way dagaalantay waxay noqotay kolkaas in colaadi halkaa hidibka tidhaahdaa buuta wareen dabeed qaadigii baa layii marba arrintan inoogu kaadiyo warba qaadigii oo soo xukun ninkii dhiisayga ahaa magtiisii wuxuu yidhi magtiisii waa dubaaqo waa 330 halaad iyo hal daloolkeed weeyaan magtiisu mar haddaanu islaam ahayn oo diinteenna saan dhigaysa waa yahay baa la yidhi isagii uu shaqadii baa laga sii daayay ninkii qaadiga ahaa qaadi dambe oo soomaaliyeed aynu qaadi ka dhiganaana ma jiraa la yidhi ilaa dhawaan waa kuwii soo dhawaaday in wadaada oo dhan carab laga dhigo watii carab miidhan la keenayo
cashuurtii halkii bay ku joogsatay waaye ingiriiskii ninka magtiisii Ah. 3,000 oo halaad ah ayuu xukuntay waaye 3,000 halaad dabadeedna ninba wixii u kari karo Ah. rati yaroo qurbaca iyo hal duqa iyo madax kakow uubaa dabeedna la yidhi waxaa tan yaa layna geline aan isaga bixino waaye qolooyin la galada waxoogaa laga yar gooyeyna Ah. way jireen oo maaragtay diiday magtii waaye markaasa dabeed nimankii wax laayey Ah. waa kuwii dool la yimi waaye waddankiiba uga tegey waaye dee yaa la saari Ah. qoladii dambe ee markaa loo yeedhana sidoo kalubay u dagaalamaysa markaa wax lay goor walba dhiig daato uma taaghayne inaga daayo cashuurta tan waaye hayr tagsigii halkaas horta ku joogsaday waaye dadka kale qola aan laga qaadin ma jiro lama jiro waaye markaa dabeed haddaan geelu jirin ah maalintiiba ragga waa la qaban lahaa waaye ee waddankiiba waa looga tegeyba waaye geelu siyaabaha caynkaas oo kalea kolka loo eego ah horta waa dowladnimadeenna isagaa ina soo gaadhsiiyey ah sharafteenna isagaa dhisay ah diinteenna baadarigu ina dhex degi waayo dabadeedna aynu gaal noqon weynay ah isagaa u sabab ahaa ah xagga kale ah soomaali isagaa xoogga u yeelayo ninka kale waa daciif waa miskiin waaye ninka geelali Ah. 4 naagood buu guursanaya Waaye. markiiba waa tarmaya ah wiilan 10 jirin oo aan teedanayn ah tawlanaan iyo taaguyeelaan ah waa tanu ururinaya sheekadiisii ah wiilkii isagoo 10 jira buu taban iska noqonayo qori qaadanaya afar foolaha aabba moojiye aamus garanay aamus garanay amay dimiya ama idin yahay ah dabadeed geela horta quwadda inoo yeelay waaye geelaa ina dhisay Ah. geelaa taranteenna u sababa Ah. xoolaha kale la mid ma aha ah ninkii aan waagaa wax ogeynina Ah. inuu imika bartaa Ah. weeye waaye waxaanu aragnaa Ah. qaan dhalinyaro oo yidhahda inaynu degnaabaa fiican oo Ah. aynu loo dhaqanno oo Ah. 3 saco aad daadka ka xidhato iyo Ah. beer yar iyo Ah. haddii aad leedahay Ah. waad noolaan kartaa Ah. waar macamu sidan maaha waaye waar alladan imika dawladda joogta ee dabeedoonada aslaaxa laga sameeyey Ah. ha u qaadaninay Ah. maxaa hore oo jiri jiray ah geela dabadeed inoo ahaa Ah. aabbiyo hooyaba ah isagaa ina dhaqaaleeyey Ah. isagaynu ku kornay Ah. isagaynu raran jirnay ah isagaa marka la qasho ah kaa saari jiray abaarta waaye waxaad arki jirtay ah tulud geel hoo reerka marka loo qalo ah ugu yaraan 4 taneeg laga buuxiya Waaye. oo ilmaha yare dabadeed carruurta eh subaga yar iyo saafka yar isku dhuuqa ah baruur la ekaada dabadeed sanad qura ah 2-3 sannadood intii u kordhi jirtay Ah. u la ekaada waaye anigu waxaan kaloo garanaya ah markaanu daraawiishayna carruurta ahayn ah cuntada iyadu waxay u badnayd Ah. geela waaye geelaa naloo qali jiray waaye geela subaxii 2 qasho waaye oo maalintii gurigoo dhan wuxuu noqonayaa haad waaye yaa dunidoo dhan buuxinaya markaad halkaa qoys waliba tulud geela waro ah dunidoo dhan haad bay noqonaysaa waaye geela 2 qasho maalintii waaye habeenkiina 2 qasho oo Ah. hal ma qali karaysid waaye iyadoo igu curtay habeen tahay waaye geela casarkiiba geela laga soo sooca ah dabadeedna casarkii baa la keenaa ah guriga ah marka aad gowracdo markiiba gabalkaa dhacayo haadkii waa kaa fadhiisanaya Ah. markaasaad gogoynaysaa guriga ku guraysaa waaye tuludaa la qalaya habeenkii waxoogaa yar markaanu dhadhamino Ah. yaa naloo diidi jiray markaas habeenkii caanaha geela waaye annagoo iska wayaynu hoolebna cuni kari weyno baanu iska gami jiray ah subaxaasaa dagaal cad nalagu qaadi jiray waaye oo naloo diidaya inaanu biyo cabno Ah. oo caana dhanno Ah. oo waxaasoo dhan wax laleeyahay wuxuu ka qaadaya subax ah dhegad baa subaxaaga nalagaga saara waxaanu qaylinaba ah geeli iska dariraya caani meel baas la geeyo aanad ka gaari karayno maalinta oo dhan Ah. waa lagu horeynaya hadba hilib yar iyo xumaa dhadhaminaysa dhulkaasaad yaacaysaa indhuhiisaasay ku gudmayaanoo Ay. markaasa dabadeedna laguu diidaya Waaye. caano dhay iyo hilibkii baa la kala ilaalinaya inaad ka qaado suban waaye mar bahaan aan caba ahayn Ah. adaa garanaya haantii riig waxa ahayd Ay. ee biyaheeda aanay maarata dhadhankooda isbedelin Ah. yaa lagu fadhiisanaya mar maxoogaa yar baan kalaxa laguu daraya Ay. markaas meelaha orordaysa ah maalinta oo dhan wax lagu waleeyaba Ah. habeenkii damba kolkaas soo galay waaye habeenkaana caana ma jiraan waaye hilib la kariyey iyo Ah. wuxuun baa lagu siinaya Waaye. marka 3 cashaad qatanta ah subaxa dambe Ah. yaad adigoo sidaasoo kala noqdo indhow halkaa kaa soo jeedaan Ah. yan baa lagu siinaya caana dhanaan oo cashadii hore ku ilaalisay ah nag 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 marta xalusha halkaa ku joogsanaysa ah markaasaa faraa lagaa qaadaya dabadeed ah gurigaa markaasaad isaga daaqaysa Ah. sidii xoolo oo kale waaye xoolo baadkaa lagu sii daayo oo kale Ah. tuludaa marka hilibkeedu dhammaado ah waa in 2-3 sannadood hilibkii ku fuuli lahaa oo ku fuula waaye waa inaad gidaarada ka boodta ah waa ina cudur dambe ku qaban ah
haddii se maalintii hore biyaha lagu sii daayay iyo caanaha shuban baa qaadi lahayd markaa aasa weeye waa sidaa geela siduu noo soo koriyey sidaa weeye waa sidaa loo leeyahay waadna korisay kobci loon iyo kadaadin ha gelin nimankaas u korinin ayuunbaa dabadeed iska sheekayn waa sidaa anigayganaad arkayso rabbina waa og yahay idina been idinku hasaawin maayo hal goola oo 8 jira baa layga doohay anoo ciisaha leeg markaasaan arkay iyadoo mid kasta isugu eriyaysa markaasaan qori baan sitaa intaan furay yaan arkay mase halkan ay ka dooxantay tartanka geejirayaasha oo dhan baan idhi waxa laala waxaa birsida ta halkaa dhiga ninkan yarkoo sidaan doonaya in xabad ku dhufto waa laga shaqeeyey amlaydii ku dhacday laxana laga shaqeeyey oo dhiigiyo waxaa laga rabeeyey bir aan garto waa ka waayay geeljirihii hashi halkii baanu ku qalanay nin odayo adeer ii ahba geela ila wada oo ilaashi kaa dhimantay hasha hilibkeeda ku nax oo sidee ugu naxa maanta biyo cab oo caana dhan oo hilib karsan cun oo beerkii oo la dubay cab oo iscalool kuskushi maalintii oo dhammaa wixii oo dhan wadi gabartii baan tan biyo ka degay iska laalaadiyay jidhaantareeda cakaare mirteeda hilibkeedu yaalla waxa allaale wixii laabteeda ku jira oo dhan baa banaanka ku dhacay galabtii labaad hashaa goosha 4 lafood oo ay leedahay yaan meel ku wada dhuuxay soo wax lala yaabo ma maalintii oo dhan ninkayga hilibka cunay wixii i joojin lahaa ee ay la yaabi lahaydeen baa tegey 4 lafood oo midina tagoogo tahay midina shansho tahay labadii u subaga weynaa iyo cudud iyo dhudhumaan meel ku wada dhuuxo rabbina ogaa ragna ogaa subaga intaa leeg baa caloosheeda ku wada dhacay waa maalintii labaad hashi hilibkeedii markaanu marsanay waxaanu nahay 4 geelo midkiiba 2 loo kala raaco maya 4 geelo midkii waliba waa 2 waa isku uun 4 weeye yaanu maalinta dambe aal keennay rabbaa oo geela intaa la eg inaan nin kale isha u gelinaan aniga ahayn maalintii ka horreysay ee aanashaasu la qalin kaalinta sarankaadka hadda waa intaa yar hashaasu quwadii ay gelisay marka waxaaba hilibkaa qurun baan ku noqday ma maroodi waxaanu waxba iga dhibi maamaayaanba xoolahan geela la yidhahdo nimaan arag oo waxba ka aqoonin baa moodaya inay waxyaalaha kale la mid yihiin marka dabeed la jirabay Soomaali nolosheedu waa isaga Soomaali sharafkeedu waa isaga Soomaali taranteedu waa isaga Soomaali diinteeda isaga halkan soo gaarsiiyay midda kaleeto sida aynu u kala geel badanahay yaynu haddadatan ninba meesha uu ku dhashay ragga dhalinyarta ee dagaalka inoogu jira ee cadowga daafacaya waa ninkii geljirka ahaa ninka dabadeedna aan gaajoonaynin dabadeed isagoo qolobta ahaya ee wiiga qadaya dhifayska ku jira gaalka fooda ku diiraya ee aan soo noqonaynin isagoo halkaa ku dhinta ama cadowga gooye maahe kaa weeye waa farkuday ragga kale ee raggaa weheliya markaa geel wax laga sheekayn karo ma uusan wax dhimihiisa la gaari karana ma aha anigu maalintaasaan kaga baxayaa wixii ay iga kordhin kartaan idinka idin jirtaan horta waa dhamaysay oo daahiro waana kuu markhaati furayaa geel inuu sidaa yahay iyo si kasi weynba hase ahaatee marka dib loo sii raaco geela adduunyada waad ogsan tihiin oo wax lagu qaato oo aan isaga ahayn ma jiri jirin oo ama hawd ha ahaato ama nugaal ha ahaato ama meel kale ha ahaatee dadkaa xeebta dega iyagu dooniyayba raaci jireen laakiin dadkaa xoola dhaqatadu markay meel u safraayaan ilaa Suudaan awrkaasaa lagu tegi jiray oo dee baabuur ma jiri jirin baabuur ina soo galo hagaagsanna waxaaba ugu horreysay 35 kuwii loo soo horreeyay waxaa baabuur wuxuu ku socon jiray ku jirtay loo dhigay markaas iyadoo sidaas ay tahay reer guuray oo meel fog u hayaamay oo uu reerkaas gaadiidkiisa u rartay markuu soo noqdo waxa misna lagu soo celiyay hada gaadiid celis geel baa jira aw baa ka jira sidaa uu dahabu yiri jiiraan ballaartay oo aad xooluhu xumaadeen dadkuna uu u caatoobay waxa loo aado waxaa ka jira xoolaha dhaqano geel maxay isagu
haddii uu caday helo iyo hadduu helo ma garanaysaa geed abaareedkaas wuxuu nagu yaalin ama uu lafo xitaa waa casha hadilad maayo guri lagaga guuray oo halkaa uu ku roogo uu helo ama darantiisaas iyo xabowgaas iyo waxa uu helo waxa weeye kii caanahana kuu badiyeen weliba kuu sii qooqa awrkuna ku qooqa waa kow caana markaad ka qaadato sibraar ku shubato ama dhiil ku shubato ee aad safar waxaad ula kacdo wax la cabo waad safar ula kacdo oo aad dhanto caana ah wax had iyo goor aan isbedelin caanihiisaa jiray maxaa yeelay awr baad laba aagaamood ku raranaysaa ama baadidoon baad tahay ama safar baad tahay ama meel sugbaad ku socotaa intaa aad ka cabto inkastaba dhammaad oo haddaad laba aagaan ka cabtaan haddaad 3 galaas ka cabtaan haddaad wuxuun ka cabtaan intaas cashan labaad afarta aagaamooda labana waxaa kaaga buuxa biyihii labana waxaa kaaga buuxa caanihii kuwaa biyaha waxaad ku marinaysaa kuwaas oo markaad aagaan ka cabtaba aagaankaas baad ku daraysaa biyaha markaas halkiisi uu taagnaanaya caanihii subag bayba hadba ku dhalaya oo qiimihiisii xagga ee caanahana waa kuwaan marna sugin midda kale sidaa uu daharu yidhi waxaan markaatay u furayaa inanka ku koraa geela caanihiisa dadka waa ugu caataysan yahay markaad aragto xoola dhaqatada xaydh ma yeesho wuxuu yeeshaa laba qaar iyo dhex yar aada moodo sogsog waxaana la yidhaahdaa magaaba geel gelin bay ku wadaa markuu dha aada cantuugto gelin bay ku wadaa baa la yidhi marka geelaasu waxa weeye markaad qalatana ay jiilaan noqotana reer ballaadhan 4 neef ama 5 neef maba dhammaayaba laakiin markaad hal koron u qasho awr goola oo qaar ku dhufaan ama nooc kastaba ahaadeen ama aad u qasho hal tebisada markaas iyaduna goola waan dhalin aad 4 qoys tahay oo 4 waxood kala siiso marka uu hilibkiisaas iyo inta duxlay ay dhammaato oo la dhamaysto waxa isku soo haraa jiirka iyo xuukada iyo jiirka markaad isku dhamayso lafihii la cunay magaysa sababka hore la cunay ee la dhuuxayay yaa dib loo kariya markaas aad tahartaa laga cunaa halkaas aad suba ka soo saaro heen baa la yiraahdaa misna lafiisa adoo saas 4-5 goor faankiisi ka dhamaystay oo hadba saa u sii karsanayo misna oo ka sii helaya heen iyo fuud waan iska sii heliya yaa banaanka markaad u qurto misna waa kaasho xadii u shuxa oo san dhamaanba waa kow midda kale sidaas uu yiri aw daahir yaan la qabaado dee haddaad uusan geelu jirin ari kula hayaami kari maayo oo cadowku soo weeraraya haddii kul loo baxo wuu waraablaynaya oo sida qaarba inaba meel kaaga harayso oo u haraarayooniyo ayaadan meel ku gaadhin loona iyada badaa maxaad marka la baxsanaysaa ay la gelaysaa meel kula baxsanaysaa sidaa uu daahuru sheegay waa geel waxa calashaan cadow kaa fogeeya amaad ku baxsan kartaa iyo isagoo saas ah gabayo badan oo laga tiriyana way jireen oo waa tuulaha ninkii la odhan jiray muxuu ahaa waagii dhow cumar ku joog cumar isdeel uu odhan jiray markab waa adduunyada u yahay soomaaliya isagoo dalkii markab adduunyada u yahay inuu geelay waxaan u malaynayaa inuu ahaa aflo ama aflo he kaasuu ahaa aniguna waa aan yaraa baan geela ka gabyado in yar baan ku gabiya laakiin anigu maanta sama badan jacaylkan u qabay baa iga keenay waagii nugaali ugu dambaysay wahay jilaal baa raahsaday haddii jiif la leedi waayo oo ariga neef laga jirxo iyo jaadsan laga waayo lo-du waa jirka ee maalintay jalato weyshiisu jinni waxa la jaawooy ninkay jamal ka fooftaalay iyadaan wax soo jarin anfaco jaaday tahay toonna haddii xerada lagu soo tufo oo yarehe loo joogo markay jilab carraysaba haddii ooda laga jiido oo gabankii soo jiray kolkaa lagu jawaab siiyo dhangadaa u jaran markaa kula shiciirtaaye waa kala jafaa oo jidku ugu banneeyaaye ma jabtada tuno yaa lagu lisaaday jeesdan hanataay goortaad jag siiso yaa hurdada lagu jambeelaaye ninkii hadal jiriidaa rawgeenu jaad noqoy
taasna marka caashaan nin yar baan ahaado geelaan iska jeclaa weligii anigu halla male imika laakiin waxaa ninka geela dhaqda waa jeclay anugu oo maxaa yeelay wax la quudareeyo oo markiiba wax lagaga soo dhisi karo oo aad la socon karto oo aad ninkaa ula mid tahay geel baa jira haddaad wax ka waraabiso haddaad wax la oodo haddaad isagoo la dhacay aad la dhiciso haddii si walba cashaan geel ku qadi maysta oo saas weeye geelu haddii uusan geelaasu jirinna waxaan ku kacsanahay in ninkaas la dilay ninkii giibaha marka la dilaayay dadkii waatuu soo fallaagoy waatuu lahaa geel inuu habar yoonisay geed xadhaadh noqoy godobtiisa nimaan qaadan karin gacanta yaa gooya gamboolkii haween lagu ogaa yaa gamba u saara waa tii lagu guwaabinayay haddaba haddaan geelaasu jirin carruurna ma hayaabayeen reerana ma soo rarteen sad ay ku soo gaadhaan halkaana ma ayay yeesheen waxaa lagu dirirayna waxay ahaayeen koodhigaas cashuurta iyadoo sidaas ay tahay anigu dadkan imika misna aw daahir waxaad ogaanaysaa dadkeena ka dhallinyarada ee imika jooga geel ma jecla maxaa yeelay waxay leeyihiin fidmada iyo ilbaxlin la-aanta iyo oqoon darrada iyo dad la socon la-aanta iyo isdilka iyo godobta hadhi weyday iyo isbaabi'inta iyo isubadheerka iyo nin weyn iska dilka geelaasunbaa keena la yihahda waana run maxaa yeelay wuxuu leeyahay nin uun joogaa miyi hal xaggee baad ka heshaa hal xaggee baad ka heshaa taasaa aada ugu qiimo weyn uguna ballaadhan geeluna wax degi kara maaha nin baa waa dhexdaasa oo loola jiray carab oo nimanka reer Hargeysa oo singletka markii hore u shaqayn jiray yaa laba hada soo kaxay wuxuu ka soo ibsaday geelaas afka soo godan leh markaasuu wuxuu sameeyey ceel weyn oo barkadana uu sameeyey laba mudul oo waaweyn na wuu sameeyey laba tiir oo dhaadheerna dhexdaasoo ku xiran cawsna wuxuu ka buxiyey dhinac markaasuu marna cawskaa u dhiga marna biyahaa siiya darana hadda u keenaa macad u keenaa labadii halaad mid walba afar hadhow gaabay buuxu jirta caanahaasuu qaarna dhami jiray inuu hadda hayay kale warka ma hayayuu dhami jiray qaarna hadda meel la sii iibin jiray reerkiis oo dhan markuu ka baxay cashaan ma garanaysaa singlen uu ka baxay labada halaadba xoolihiis oo dhan ugu horreeyey caanahooda ma xidhay labada halaad u xidha intuu guri markaasuu isagana guri ka dhistay weyn meesha markaasuu halkaas caanahaas yaa ka cabba waxaa ka cabba ninkii dadkii waa yaqaana inta beeralada markii dambe baratay markaasay gooryaankii ka soo daartay carruurtii caanihii midda siinay noqotay bas weeye qolba ya yaxaniga loo abo mar haddii caanaha geela aad cabtid waxaas aan leeyahay hadoo laleeyahay carruurta ta waxun siiya ka soo dhammayn maysa laakiin caanaha geela waa ka soo dhammaynaya maxaa yeelay aniga waxaan garanayaa 1952 yaa waxa igu dhacay cagaarsho markaasaan dhakhtar u galay markaasaan 3 bilood ku jiray markaasay waxay ahaadeen baruur cunay oo caanad wuxuu lahaa cunay hadhame oo hadda ledmaayo subaka cunay markaa waxaan dhamisanana un sorseto oo magaalada ku kaayeen kafe ab saaso ninkii 30 kiilo noqdun baan baarkay waa qoysay 3 sano baan saas fuurada awood irbado baraado jinni markaasana waxa ku haya waa daltabiyo naas laa halkan aan ka dhaqaaqay balcad markaan maraayo ma ay caaniyo baruursi magaalada aan tagay ilaa Hargeysa aan ka tagay caaniyo baruur iyo quraca iyo garoolka iyo daranta ama nooc kastaba oo ahaatee noocyadu waa badan yihiin iyo qowlka duulka ee baxabaan dhulka oo dhan baa doog lahaa barwaaqada markaasaan saas u cantuuga sida taaskan cantuuga midol meeshaan tagay baruuriya waan ka cunaa iyo hadal maayo iyo hilib kale caano fresh kuwa kan dhadhanka cabbi maayo ana garoon siiyo maana adigu waxa uu daalay waxaan sidii u wadaba intii aan sii socday habeenka Hargeysa aan habeen joogay Hargeysa ku idaaco kale yaan habeennimadii dambe saas uu soo galay
ninka kale maxamed ducaale iminka u shaqeeya biyaha gurigiisa waan markaasaan warcaawa xaalku waxuu yahay bal maqsinka goonida meelaha asaasna ahad wallaahi baan ku dhaartay habeenkii oo dhan marna aabaan idhaha marna xagga dambe labadu mar bay wada socdaan xagga dambena wax soconayaan afkana wax soconayaan soo gaamaysta bil baan ahaayay 20 beri oo kalaan ku darsaday oo dib ugu soo noqday halkaas dugaal dib ugu soo noqday markaasaan geelay u tegey أنا قوم ولا أنا إليسا أو واحد إليسا كوا عشان مقاليسا رمقة لما بقولك لقسي وأنا عبد ورحبي يا شيخ كقول ده نكى يشتري يصدق كيلان هالك كجتي نكى يصون وضي لبي اللحدا كيلا أنا جوا أحباني شو كان بيس مركز أساسي دل تبيض نواجهته وهالكاس وحنا كسب لحق الدولي لكن وحن وطن اللي يستوي وحده وياه أنا جيل وحده وياه مركز هذا الكلام مسوق قبينا إياه جيلو ودبات بديه هاي وأنا وناك بديه ودبات بديه هذو ناقتي نكا إنما كوسو حضر تجين ويديسي تري رجوجوشي جيل حردي يبدر إيدانكي إنما وحكو شاكر أي ترى ما إذا مرحبا فصلاتي ما كان حين وطن جيل حردي يقول ده واحد هذا وين أقول لي خلاص يا ترى عاد وقت كي يصير اسمع مرة واحد جيل حردي واحد يقول لي حدي اللي رتقوا قدر له حدوا ما يهوى رابية حدي اللي حرقينا راعة وإلى عليه بيلا هذا كده كيل حردي بركة وحوية وإنه ليه عيدة وهيجني والنبات دي سبعتها هجوا قشرين وقت اللي يلا عشان وحوية وقت بالعام صندوق وكره حتى صدق دبلة تكون من مصر بدرنا وحلين إذا كي وحوية إنا يباهي كويس هذا قاعد شعر قاعد شيء صدق وأكو تحكتنا وحوية شكل وقدرة وحتى نكوسه له وتوا سكست يجي هذا يقول شكله نفعي ما مركا ما هو بهنا وبالي يلا إذا كونه غنى أما هل يقول شكله هذا أنا جو مدوم بعي كل لحظة لكن لو ضايع رئيس كقدري وحن ليه جيل وحوية غنيمة صوماليات لكن دتك يرير يعني دتك يرير ولا دتك يرير إيه شو جا مجال كرم ما يقيمه هيس هي وحول لي هاي وحول قال لي وحول جودة بدنا دتك يرير هذا بيجي نوتش كنا لقى بس ويا يدور ورأيه حوالهم بمشي بحر المجال عليه هذا حوالي بين بينهم محبة بقايا هل كاسر أنت أجر بانك تابعيه ما درسناش عشان waxaan soo gaabiyay waxaan ku darsanayaa soo gaabiyay wali qoylo shugado oo daahir la wareystay yaan eegay marka saa ugu batigaalena waxaan ku darsanayaa wadaadkii la oran jiray Sayyid Maxamed Cabdullaah Xasan ee daraawish isu keenay xooggiisa dhaqaale wuxuu ahaa geela loo uma tirsanayn ariguna uma tirsanayn fardaha iyo geela ayuu 20 sano ku dagaalanayay Soomaaliduna waxay yiraahdaan geel wuxuu ku leeyahay cad ku deeqa iyo cad ku raacda ayaa geel leeyahay cad ku deeqa ayuu leeyahay tulada marka la qalo hilibkiisu neefkii wuxuu ku filan yahay 100 nin cad ku raacdana waa leeyahay markaad la tagto ama lagaala tago ama maxay raacada la baxsanayso oo qaxinayso ragga waa ka daran yahay oo waa ka dheereeya Soomaaliya meel kasta ha joogtay suugaanta Soomaaliya waxa laga helay nolosha Soomaali kow waa geela waxay yiraahdaan geel niman lahayn hortay waraabinayaan geel niman lahayn gaajo bay dishay geerawron wadaadkii sayidkaana wuxuu yiri arigun baa dhaqato garan naflaga waa hadduu seben gadiidsado giibdhan ismalaho gidirlimihidiid haddaan kunan la siinayn oo harreen badaney guluray weynay halbaan abid gabdhoolaynay marka sidaa marka wixii la isku dilaa waa geela
wixii mag lagu bixiyaa waa geela wixii gabar laga bixiyaa waa geela waa dhan loo eegaba noloshu waa geela noloshu waa geela okay أنا دقيقة أسهرين مرة والله سألتين وين السلام عليكم عليكم السلام geela ciise wax yar baan wixii uu ilaahay aan ka hayay maxaa kan kaaga taabanaya ama rag hore aan ka maqlo ama anigu baan ka arkay geela wixii ilaahay nafgeliyey dad iyo dunya inagu ku aragnay ifka horta waa u adag waa u adkaysan badan yahay raggii horena waxay leeyihiin 12 bilood buu macaan shala'aan dhudhunkiisa oo aan macayn dhuuxiisa aan macayn wax 12 bilood ku socda oo ku lagu nacfiyo geela jiray سنة تكلي وكم مهما سومالي إنه حلو ونكسني وحنكون قال وكم مهما نكان ويل كي سهل وقدما جيري بيسي وقابين جيري بيسي وقا سوى ويل كي يجي نور بكت إنه ويل بس أنا قدم بيني وعد وقا نكان ويل كي سهل وقدما جيري بيسي وقابين kan kale waa tii markii dhawada uu jaax sheegayay nin baa leeyahay maxad geela ka jeclaatay xoolaha cad ku raacday ya caana ku deeqa ya cad ku deeqa ya cad ku raacday weeyay saddex raas ka jecel ina Abdullah Xasan waa kii ariwanin maradi isagu uga buuxda لكن واحد الدولة نفط كحن دقلات هل يورك هو يد من كستارا هيست ما يشوف الجاري يوعد أروان المرض يمسده قبل حلامي لكن واحد الدولة نفط كحن دقلات يسوى واحد الدولة يلودي مني هل ينورك هو يد من كستارا هيست سيقول غير بوكو سيقول دارود من هيستوى لكن ما أنت نقول ما يصير. حلوانين هو يدي منك استعايز لكن كان يكبر بدري. يا. جاي بشكل الدنيا توقف رأيها. نحن وحالي. محا. وقالتها إن نكون. ورا ده محي ولا بيد ما دلنا بندرسي. سلوا بنجتي. ما نقدر هيستنلو إسكسي. مدلان بان درسي مسلو ما نقدر هيستنلو فوق نفس ديوي إذا وانا والد بقولي كسر خالي كي ساجر ما هي والدي مدلان بندرسي مسلو بنجتي وش قال الصومالي ده هل كاسولي تشوفه بينيس واحد ابن مدينة يقبل ابن مدينة الصومالي هتين مجعي نبتها waxa qurun waliba inoo timid inoo qaban weyday inoo gumaysan weyday inoo haran weyday waa isaga waxa jirtay inaan ingiriisku waqooyiga iyo waafaqmo badnaayo ingiriiska waxa jirtay rag uusan weligiiba qaban inuu jiro hawd idlaa iyo qofa idlaa geela iskaga haystay oo meel wadana gelin wadana ka bixin oo dhirteeda la mari karay oo lama galay ah oo ay biyo lahayn دوغ لقى عنا ما إنه إسكجاه يستوي مالي أو لو جلوه مركا إيه ساسو عجيب سلوا الدنيا وقصر يا ولا كانوا يقولون شيء يا لها وي مركا كتبت اللي بابا قال يا سيد وراك قال يا سيد واحد قال قال لك كده جايبوني يهودي قرفوضا واحد لو غفر واحد قال لك كده يقيموني هاي قرفوضا واحد لو غفر المقدمه جاي ليلا بيجيبها لهي وفقد كريم كويس دير واحد لو الاساس اللي تقول لي marka Soomaalidu sidaas ay tahay fulay mirta balay radio fulay mirta fadhi la hudii fulay dabiya منهم داك ما هو ولا هو أنا كنت بدي وأنا كنت بدي وأنا عليه سواد ما كان إمك واحد خبرت إنك
hargeysa haddaan maxay inaad u dhugayso isagaa ku geynaya laba aagamood baad ahaamood baad caana ka buuxsanaysa caanihiisa awr isagiiyana waa qabanaysa wixii wax kuu saaraayana waa isaga wixii ilaa intaad cunaysay sahayda kuu ahaa awrta markaan horayna waa nagi odhan jiray markuu cabaabo qarqadhaadi mooye gelaad qaaday kaandho maxaa yeelay waxaa loo kala duuri jiray dhulka waqooyiga inta laga duulaa waxaa loo duuri jiray dhul adar iyo ka shisheeyo xaggaa foga awrin baa ku geenayo loo rarnayo wati ismaaciil miral haddana awrku noo ciid mahayn camar ma gaadhinayo yani meeshaa ma tagnayo awr un baad meel kasta u raraysaa sahaydii baad ku qaadanaysaa waad kaa gaabin maayo carruurtii baad ku qaadanaysaa carruurtii baad ku qaadanaysaa raashinkii baad ku qaadanaysaa bukaankii baad ku qaadanaysaa wax walba waad ku qaadanaysaa guradiisaa biyihii iyo caanihii iyo hilibkii wax waliba ku saaran yihiin marka la guuro arigii iyo lood iyo xoolihii kale la odhan maayo reerkii la odhan maayo adoo xoolihii kale wataa dadkii weydiinaysaa waxaa ka waa reerkii xaggee degay waa awrtii xaggee lagu furo reerkii oo dhan awrkaa guradiisa ku leeyay reerkii xaggee degay xoolihii hadda wuu wadaa xoolihii iyo dadkii waa ku wadan waa kuwa dadkii iyo xoolihii midna reerkii ma aha dadkii iyo awrkii baa hogaaminaya reerkii noqon reerkii dhamma waa awrkii iyo wixii saaraa reerkii wixii dhaxanta laga geliyey roobka laga geliyey ee wax lagu maalayey ee wax lagu cunayey ubadkii yaryaraa wixii naftii reerkao dhan bujiray nin raggii hore oo loo saarayna wuxuu yidhi waxay yidhaheen raggii hore haddaanu awr qiimihiisi sheegi lahayn waa la isku dilaya in sidiisa ha loo daayaan qiimaha uu leeyahay haddaanu qiimayn lahayn oo sheegi lahayn waa la isku dilaya hadhow baa nin awr kaga qaamoobaya war waa ka qiimihii loo gooyay isi buu leeyahay isna waxaa u caqligiisaba geli mayso u qaadan mayso waa la isku dilaya marka sidiisa ha ahaaday naga daayaan yaa waxba qiimihiisa lasii yaa faafaayo waxba qiimihiisa la faahin soomaalida isku goynaysa o isku dilaysa awr qiimihiisa kiina waa kii ka maahmaay ninkuna la yidhi waxa ay saa tahay haddana hashni waliba hashiisa inay berib lashu jecel mid baa ka maahmaahay oo la geeliisii awreey awr dhala markaasay yidhin geelaagii maanta awr buu wada waa goblamay gaari warashaydu markii awr dhashay goblantay markii awrii dhashay iyo hashay goblantay iska taguy waxba mataqaanin mahmaabay noqoto waa la warashaydu markii awr dhashay goblantay marka waxa geel la yidhahaa waa ka ninka la weydiiyey xoolaha la weydiiyey la yidhi maxaa xoolaha u shita lo-du waa saa arigu waa saa farasku waa saa markaasaa la yidhi oo geelina dee naftii ma aydaan weydiin xoolaha ay weydiiseen isaga waa naftii buuri waa nafteedii buuri waa naftii soomaalida marka nafna aydan weydiine xoolaha ay weydiiseen xoolahina wax idinka sheeg marka geeli kuma jiro xoolihii waa nafti yar waa naftii buuri naftii miyaa ay weydiiseen nafti wuu ka sarreeyaa xataa magaci xoolo sida ugu muuqata wuu ka sarreeya gediga maanta reer ku raraya habeenka isku jiraad raraysa duhurka dabadiisa meel kaga daadinaysa dadkii oo askaran markaasaa biyihii laga cabayaa guradiisa saaraa oo wixii cuno saaraa laga cunaya geeli oo dihinaa oo tan iyo maanta la waday waa maalin male waa qorayn male weelkii oo dhan baa la guranaya markaasaa habartii iyo odagii iyo gabadhii iyo wiilkii iyo